dalalka deriska ah dood kama qabno dadaalka aan dahsooneen ee dadka nabadda suga deriska doorka fiican dheela dabciyo wanaag ku wada jooga xasiloonida diiradda saara sideen dayaca uga bixi karnaa dalaga iyo deeqda xuduudka uga dheefnaa amniga dooqeena uga dhignaa axadda soo socota nagu soo biir gorshagtadu markay soo dul istaagto labada duhurnimo oo dhegta u raarici Daawa FM iyo barnaamijka danta dalalka deriska oo aan diiradda ku saari doono mas'uuliyadaha na saaran doorka shakhsi walbo amniga iyo nabadda bulshada deriska ah kulan wacan dhageyste ku soo dhawo barnaamijka toddobaadlaha ee danta dalalka deriska oo aan ku qaaday dhigno arrimaha shacabka xuduudka wadaaga iyo danta bulshada deriska ah xalqada maanta waxaan diiradda ku saaraynaa siyaabaha kala duwan ee xalinta khilaafaadka iyo isku dhacyada bulshada doorka shakhsi walba iyo koox walba haddii ay noqoto haweenka odayaasha iyo culimada waxaanu faaqidi doonaa xeeladaha kala duwan ee lagu xalin karo khilaafaadka marka laga reebo ismaxkamadaynta dastuuriga ah xeeladahani waxaa ka mid ah dhexdhexaadinta dib u heshiisiinta gorgortanka xalmarinta iyo dhaqanmarinta sidee loogu hortagi karaa khilaafaadka oo loo shiiqin karaa ka hor intayna soo food saarin mar walbo ka hor gumaystihii intaan fargelin lagu sameyn dhaqanka Soomaalida dabcan hababkan ayaa inta badan loo adeegsan jiray xalinta khilaafaadka wali waxa aad loo amaanaa hab dhaqankani waa mid hubaal ah haddii si loo eego dhaqanka iyo xeeladahani ayaa lagu adkeyn jiray nabadda dabaqa wadajirka iyo isqadarinta iyo isdhexgalka bulshada fikradahani ayaan u baahannahay haddii si loo wanaajiyo danta dalalka deriska ah qodobka barnaamijkeena maanta waxaa dhageystahan inoogu soo diray barteena Facebook waxaanu leeyahay waxaan ahay muwaadin ku nool xuduudka Kenya ila leedahay Ethiopia iyo Soomaaliya waxaan si qurux badan ugu faa'iideystaa fursadaha xuduudka balse waxa arqalad nagu ah mar walba xalinta kiisaska deriska iyo sidoo kale isku dhacyada inta badan dadku waa isku dhaqan haddana waxyaabo badan oo la isku gefo waa kuwa laga hortagi karo oo la xalin karo ka hor intaysan weynaanin su'aasheeda ayaa ah sideen u xalin karnaa dhibaatooyinkeena inagoo ismaxkamadeynin iyo ma jiraan siyaabo kale oo la isku xalmarin karo teeda kale ayuu leeyahay waa maxay doorka shakhsi walba ee ka hortaga khilaafaadka khibrad ahaan Soomaalida fikradaha xalinta khilaafaadka ayaa ku gaadaaman dhaqan iyo caado hab nololeed sida ay ahaan jirtay bulshada xuduudka wadaagta waa in ay si nabad ah ku wada noolaadaan isku xirnaadaan isqadariyaan isla xalmariyaan dhibaatooyinkooda iscafiyaan khilaafkana iska xalmariyaan xalmarinta khilaafka micneedu ma aha kaliya in la sugo maxkamadda iyo booliska cadaaladdu mar walbana ma keento isdhexgal iyo cafis waara marka loo barbar dhigo xaajada dhaqanka ah siyaabaha kala duwan ee dhaqanka ah ee loo xaliyo khilaafaadka ayaa ku salaysan nabad waarta iyo isdhexgal wacan ila soco aniga oo Maxamed Ibrahim barnaamijkeena waxa marti inooga ah maanta mudane Xuseen Yuusuf ku soo dhaw marka hore barnaamijkeena mudane waan ku mahadsantahay ka soo qaybgalkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawahay walaalkay magacaydu waa Xuseen Yuusuf Sheekh waxaan ku magac dheerahay HY waa laba xaraf oo Xuseen Yuusuf tilmaami marka waxaan ahay xogayaha guud departmentka u xil saaran isku xirka bulshada xalinta khilaafaadka iyo ka hortagga xagjirnimada Bandera County aan yaani ka shaqeynaya ana u xil saaran muddo hadda 7 sano aan arinta meeshan u xil saaranay alxamdulillah su'aasha ugu horeysa haddii aan ku weydiiyo waa maxay xulka kale ee xalinta khilaafaadka maxayna kaga duwan tahay xalka maxkamadda horta waa run khilaafaad waa dhaca waxaan u maleynaa tan iyo waagii naba aadam caruurtiisa islaaynays iyo inta laba dhaxdood horta khilaafaad waa jira khilaafaadna waa yani waxa iska imaana dilaab dhaca xoolaha la kala qaadaa wax badan dhaca dad baa ku dhaawacma dad baa IDPs ku noqda oo reerkooda iyo ciddooda ku waaya khilaafaadkana waxa way laba beerooduna waa ka dhaci karaa beesho dhaxdeena waa ka dhaxdhici karaa si walba soo dhici karaa cross borderna waa ku dhici karaa gudaha oo countiga mis gudaha wadankana waa ku dhaxdhici karaa si walba soo maan karaa marka khilaafaadkan mar walba anaga waan ka hortagnaa markii wax dhacaan awal horta waxaan yeelnaa xabad joojinayna saad og tahay xabad joojin markaan yeelno oo dilkii aan istaajino waxaan iskugu yeeraynaa mas iskugu tagaynaa anagoo odayaasha wadano waxaan iskugu tagaynaa meeshii wax ka dhaceen xabadii aan istaajinaynaa ka bacdi odayaashaan la soo fadhiisay odayaashii balcaamihii culumadii waxay dhulkaas ku jiray kulli waa la fadhiistaa hal shay oo wanaag badan oo
allah barakay reerkan soomaalida ku fiican yihiin waxa way waqti walba diyaar ay u yihiin inay wada hadlaan waa shay oo lagu fahmahay haddii wada hadal ba jirin culays badan ay imaan karaan marka dadkayna soomaalida waxay ku fiican yihiin wada hadalka waa ogol yihiin markii hore wax waa dhacayn dad waa dhinta laakiin gadaal dambe haddii la qabto inay wada fadhiistaan oo wada hadlaan soomaali dhaqankaas waa ku fiican yihiin waana ogol yihiin markaan wada hadalka aan hagaajino marka laba nidaam hadda waddanka ka jira dastuurka waxa way dastuurka oo waddanka iska leeyahay oo maxkamadii dawladda Kenya oo yacni ninkii Allah dhib yeelay bis qof dili la qabana bilista qabani maxkamad la geeyna muddo 2 sano 3 5 sano soconi evidence iyo markhaati iyo wax loo doona ka bacdi la xiraa mas'uul soo dayna midna waxa waaye mid oo heer dhaqan ah lagu soo noolaay sharciga islaamkana waa qafsan oo aan ku soo dhaqan jirnay oo ninkii Allah oo dhib loo geystay oo xaqiis ku hela aan soo wada jirnay waay marka arrintan hadda dawladda Kenya hadda waxay dhahan madan hada traditionalka oo yaani hab dhaqameedkan oo Soomaalida ku soo dhaqami jirtay odayaal u fadhiisanayn oo gar i gardar la kala qaadi jiro oo nin walba xaqiisa si jiri dawladda Kenya hadda waa aqoonsan tahay oo lama aqoonsan jirin hadii qof dilo waa bis dib kala dhaco yaani maxkamadda boogi waxaan kala oo hoosoosay lama ogola laakiin hadda waxa way dawladda Kenya waa aqoonsatay waxaana la dhahaa alternative justice la dhahaa mis alternative dispute resolution la dhahaa waa yaani xaqi badala yaani bedel xaqi oo maxkamadii wax kuugu bedela oo aad xaqaada ku heli lagu soo bedelay dawladana waa aqoonsatay sharcigana waa la geli alternative justice and alternative dispute resolution labadan shay waa jirta marka anaga Soomaalida waxaan ogolnahay middan aan ogolnahay oo maslaxada aan ogolnahay maslaxad maxay leey maslaxada horta middan maxkamadda waxa way muddo dheer ay qaadani qarasha ka baxa dad aruurini adigoo basharay dib lagu geystay ayaa markhaati keena lagu dhaha adoo kali weeri jirta dad soo rari gaariid ku soo rari waa qarash badan tahay muddadeedna waa dheer tahay musuqmaasuqna waa lagu dhax sheegay musuqmaasuq inoo wax biliis soo mar inta soo mar maxkamadda inta laga mar midkood waxa weyn waa nin iska nugul oo waa af nugul yahay midkood kalena waxa weyn nin af adag way mid waxa kiil dulmay wakiil maqaba midkii dad dulmay lacag qaba waa taga wakiil asla imaara marka hoogo xaq kuma jir xaq oo ma arkaan Soomaalida laakiin middan kale oo maslaxada oo shacabkayna wadaan waxa way horto mumadaahis waxaad waa instant way meeshaas way garaa lagu helaa sabeena lagu xiraa dhaawacada la cabira waxaan taageersanahay oo aan raacin aan ku tiirsanahay wax madax laga keenay ma ahayn kutubkayna oo muslimka ah aan qabna oo sharci la soo hagaajiyo culimada soo hagaaji oo wareegto lagu hagaaji magaalo sub county walba la tagay public participation of Soomaali ku badin kare la soo hagaaji oo hadda qofkii la dilay waxa way hadda asar nin rag yahay waa 100 neef geela dumar daytayna waa 50 neef geela tan sharciga qaba 100 neef ma bedeli kartid 50 kana ma bedeli kartid laakiin waxaan bedelnay hadda muddo hadda 3 sanad aan ka joogno waxaan bedelnay oo shacabkayna aan dhaxgelinay oo community walba hadda wada saxiixeen aan bedelnay waxa ahayd qiimihii oo neefki geela as joogay waagi hor 10 kuna lagu qiimeyn jiray neefki geela waad ogtihiin laakiin waxaan aragnay dhiigii 100 neef waxa noqon 1 milyan shilin tan kale waxay noqonaysaa 500 kun balcana daytay marka arrintii culays ay keentay dhiigii waxa noqday wax raqiis ah 1 milyan waa maanta wax shay yar oo nin walba iska kaafin kara iska bixin karo way marka dilkan waa u istaagi way marka sidii marka review aan ku hagaajinay sharcigii 100 neef sharciga kutubka Ilaahay ku yeeshay marka lama bedeli karo laakiin waxaan ka bedelnay qiimihii neefka geeli aan ka bedelnay suuq walba tagay hadda Mandera County waxa ku jira 4 category oo 4 nooc oo suuq ah ku jira suuqyada yar oo tuulooyinka sub county-yaalkii magaalada Mandera kuwa suuqa kulli waa kale kulli beecan soo qaanay culumada soo wareegtay muddo 2 bilood ay soo wareegeen shacabkii la hadlay shacabka kulli waa taageereen beeya la soo qaaday beeya la isku jibi ala neefkii waxa la saaray 45500 45500 ala neefkii la saaray marka boqolkii neef waxa noqonaa 4 milyan 550 kun as noqonaa oo boqolkii neef oo dhiigi ah marka halkii milyan waxaan ka qaanay waxa lagu bedelay 4 milyan nin dilo oo nin reega dilo 4 milyan 550 oo ku waajib ninkii balcad dilina waa nuskeeda waa 2 milyan 250 kun marka iyada taasa ku waajibta marka sidii dadkayna marka waxay taageersan yihiin maslaxad matan waxa kuma daahinays musuqmaasuq malaha lagama daahinay waxaadna banaankaad ku heli haddii maanta lagu gooyo
berri dambe waxaa waay waa lagu bilaaba huriyad ka heli laba fees saddex fees dhexdeeda lagu bixina laakiin maxkamada waxaa waay musuqmaasuqi ninkii af adaga qaadana ninkii lacag qaba taga wakiil soo qaadana ha qaada dulmina muddo dheer ay qaadani marka dadka hadda taas ma ogolo waxay ogol yihiin middan anagana waxaan dhahnaa Soomaaliyeed hadda waxaan dhahnaa dawladda waxay leedahay middan maslaxada alternative ay dhahan alternative justice anagana alternative waxaan u qabnaa middaas dawladda alternative maxay taas konton sano baa jirta tanna waxay jirtaa tan iyo sharci diinta islaamka waqtiga la soo umeeyay maanta soo jiri jirtay marka anaga toodiyaan ataa shir badan aan ku dhaxdheeni shir weyn oo conference international conference aan ku sheegay in toodii alternative tahay oo tayna alternative ahayn bal wax nooga sheeg doorka dhaqanka ee xalinta khilaafaadka waxa way door fiican laga qaato waxa way horta meeshan odayaal isku mad liskeel yani baashan markii loo fadhiisana oo maxkamadan oo maslaxada markii loo fadhiisana iska fadhiiso maaha nin walbana ma fadhiisanaay waxa la keenay odayaal oo oday dhaqameed oo taariikh badan hayaan marka midalan laba beelood midalan hadda daan ku siyo beeshi adaan midalan hal beelood ku siyo mareexan iyo garra dhaxdooda haday wax dhacaan odayaal oo 80 jir 70 jir wax soo maslaxay jireen anta koor sanadkaas 20 san laga joogo luuq waxa ka dhacaysan shan arintaas saala loo xalilay labadan ciidood anta koor Ethiopia waxa ku dhacay saan dil saana ka dhacay saana lagu xalilay hatta maxkamadan Kenya reference oo yaani maxkamada Ingiriiska ku yaash anta koor case saana u xalis wala dhaa marka tan waxay qabtaa case arin ku dhacday yaabalo oo ku dhacday oo laba beelood soo dhaxda ku dhacday saana loo xalilay mid luuq ku dhacday saana muqdisho anta koor qofkoo saan lagu dilay saana lagu xalay reference xagga laga keenay iska gal oo iska dhigayso oo iska oday walba uma fadhiisan kara oo marka waa dhaqankii Soomaaliyeed oo intaas oo laakiin dibka waxa jira waxa way oo culeys ka jira recorded maaha meel ku qoran tahay oo buug ee reference gaalada hadda waxa haysta buug oo reference ay qabaan taayni wax maskax laga keenay odaygan hadaas dhintan waxa waa labaday baashi saasay ku tagay sidoo kale dhanka xalinta khilaafaadka marka loo eego odayaasha ayaa ka soo qayb qaato bal wax nooga sheeg doorka odayaasha doorka ka qatan waxa way horta labada beelood inay kala istaajiyaan awalhu dibkii socday in la istaajiyo markii la istaajiyo labada beel odayaasha dana waxa way iyadoo dhinac loo safarin inay labada dhinac ay dhageystaan oo nin walba xaqiis iyo cadaalad ay u xukmiyaan mid kale waxa way inay sabeen iyo yaani حقي ننكي دي وهي نبقى اللي جارسي كلي اسسمنت لو هاجي هداي جركيس لي جيبي قعنتيس لي جيبي هذا فرتن عمل فرتن سدح ميل اي كلا جون شرعي مسلم هداد راعدو meel walba waxa way waa 10 neef oo geele marka fartiib waxa way waa 30 neef oo geela marka iyagoo sharcigan taageerayna odayaasha waxay xaqiijinayaan ninkan oo dib loo geystay inaas misreerkan dib loo geystay inay xaqooda helaan oo daba kacaan moogin ninkan inaas doonto maaha xaqiis inaas doonto maaha odayaasha iskale in ninkan raali geliyo in ninkan ka fiyo wado in ninkan xaqiis loo qaadana waa hool oo odayaasha u yeeshay way dhanka kale wax nooga sheeg doorka haweenka anaga Soomaalida horta ayaamaan wax badan isbedelaya Soomaalida hadda ma jiri jirin ayaamaan oo ma jiri jirin hoos kala taga bal'aan oo yaani kees qori ma jiri jirin laakiin hadda wax walba bedelmayaan haweenka waan u baahanahay maxay dulum badan oo hadda balcaamal lagu loo yeestaa jira liska dila liska dib loo geysana misla kufsana markii la soo kufsadaba gabadhan oo soo sheegat in hebel soo kufsaday yaa fiirina way arrintan assessment kaba waxa way balcaamal arrintan qaadana iyaga soo fiirina iyagoo ilaahay ka cabsanaan oo la dhaari ayaa taga soo fiirina marka awil Soomaaliya dadkan dhaxdiis waxa ku jiri balcaanta qolka abaabuli jirtay waa abaabulayn ragay kicinayn hadiiba maanta ciidan reer hebelkan wax la soo yeelo bal amaag cawada ma seexrayn oday cidiis masnin cidiis ku soo hooyin kar malaha waa eleynayn bilaay wax bay sheegayn hees bay abaabulayn rimankay ku kacayn يعني أولكاي خيخ قادن جرين راشينكي iyo wixii oo duurkan oo milishiyada shiftadii ku cuni lahayd ay hagaajinayeen wax saas jiri laakiin ayaamahan waxaas ma jiraan balcaami waastajeen iyaga hadda wax qiibay ka qaataan yaani lisku maana odayaasha isku maani wahiba gabar iyo balcaan xageeda saabsan oo kulli yaani iyaga dhageysana iyaga soo fiirina hadii qoftan la fiirina oo dib loo geystay oo muddo la fiirina oo isbitaalka sariirta dhaxda lagu fiirina qofka ilaalina oo raaca oo maamada inay bogsootay inay bogsoonin culeyskeeda maxaa soo dirisay kulli ninka fiirina waxa way waa qofka balcaan marka balcaan hadda qeyb fi anay ka qaadanayn waa ilaa maxaa ninka dhibona madii culda khilaaf dhaca mis dhibda ninka dadka dhibona waa balcaan iyaga yatiin ku soo hora yatiin noqonayn ninkooda dhimana marka dhibkii hadda waa la isla arkay way horo balcaan hadda waxa way ninka waa ilnayn ninkooda inaas tago qori qaato culgala waa diidayn hadda marka qeyb fi anay ka qaadanayn ma sha Allah tan kala doorka culimadeena ay ka qaataan culimada horta waa dad zaid muhiim waa door fiican waa ka qaadanahayn khayr Allah siyo
anaga waxa way heer kayn Soomaaliyahan waxa way culimada waxa waa Supreme Court kayn way haddaan anaga ka dhigay bal odayaasha meeshan isku gifaan oo lismari way oo labadan reer oo reerkii wax geystay oo reerkii wax loo geystay hadday ismari waayaan anaga waxaan u tagnaa culimo qabnaa hadda department kan dad culimo aan la shaqeynaa jira oo arrintaas kale oo loo qaada culimada marka waxa way waa fiirinayn iyagoo kutubki fiirinayn markii hore waa heerkii oo Soomaaliya bay ku wadaan laakiin culimada waxa way hadda marka sharciga ay keenay marka ninkan ma diidi kar marka wixii sharci ilaahay sharci u qoray dadka kulli waa muslimiin way marka waa ogol yihiin waxay u qaad marka tan kale waxa way assessment ninkan haddaas dhaawac yahay oo sharci dhib soo gaaray hoos ahata gudaha hata dhaawaciisa dadka fiirina oo xaqiis u qaada waa culimadii labadan ciidood hadda iskari waayeen dadkii u kala qaada xaqoodii oo Supreme Court kii ay waa culimadii marka culimada saasay muhiim ku yihiin mid kale waxa way culimada muhiimadooda waxa way dadkan waa wacdinayn cabsi ilaahay loo wacdina dhibkan dagaalo dhibkiisi qabiil macadiisa waxaan kulli loo sheega marka yaani kaalin fiican ay ka qaadanayaan iyadoo hatta col jirin ayaa dadkii wanaag badan lagu dhaabura waxyaabaha ay ku liidato maxkamadaynta misna caqabadaha taasi ay dhaqanka xalinta ay kaga wanaagsan tahay maxkamadan oo sharci wadanka Kenya iska leedahay waxay ku liidataa كيسس كورت مدة قادناين مدة إلا نينكي يعني لبلو جيست دولون كلو جيست يعني عرنتان أسكنع يعني مدة قادناين مدة كلو حاول قرش بدن أكوبها قرش بدن الوكيل ضبهناني أنت المري بوليس خرداس لو كعكي سايل يعني قرش بدن أكوبها مدة سد حد وحاول مسغماس ونواكو جرا نينكي تبر له أيام محكمة شدة نينكي تبر له نينا ضد الما ده لبو جيسنا واتجا وكيل سوق بسنا هذه لبك لو جيست مساكين تايل عم هاي شدة مركز الدولة دنو كمسينيس وكيل أو كو يعني كو دودا أنا كمسينيس مركز حبيش عريس وقتها أو شرعي يو ودن كم بسكلي موجود ذلك زايد ومربان مدان كلنا وحوي أو لين عين يجنا وحوي documentation ملها يعني documentation وحن قرال ملها كيس داعي ضد واحد سيله واحد بين قراله وواحد بريء لك اللي بودي كرت طبعا سنة كبعد أرنتن واسو بودي كرت لكن واحد ريكورد لهايست مركز كيس كان أوفر ديزاين أو كراني أي خبان أو واحد قرين مجرد مركز واحد أو فيديو أي كدوبين ملها وون أورال أفكم بالغ الله يعني ولا taga tan waa la ifnimadeeda leedahay maxay wax walba dhici kara odayaashana waa dhamaanayn heerkan kulli waa dhumi doona waxba biri soo baxa dada wili la soo baxa oo heer waxba aqaanin oo digital oo waxba ka aqaanin marka reference-ki marka mara meeshii oo laga fiirsan lahay malaha iyadana tan ay mid kale waxa way waa qarashlaan way maxay leeyahay hadda fiiri midda maxkamadda dawladda waxa way dawladda maalgelis odayaashan waxa waa fi sabilillah waa dhaqankii Soomaalida moogi allowance ma qabaan shan waxa way wixii meesha laga guray labadan dad oo grief dhumba shan usoo karna moogi wax kale ay qabaan malaha odaya mandheera ka taga waxa taga eelwaq arin to meesh ka dhacday inaas xalil transport hatta yani jeebkiisa inaas ka baxsad moogi ma qabaan marka hogo resource kana waa la ifas ku yahay sidee la isku jaan qaasiin kara dhammaan xulalka dhaqameed iyo ku dastuureed ee xalinta khilaafaadka sidii isku soconsiin karo waana bilaabatay waxa ma taqaana markay cusub yihiin kulli horta dad bay dhibaayeen horta waa bilaabat waxay ku bilaabatay wadanka Kenya oo aqoonsaday maslaxa system maslaxadii aqoonsaday ay ku bilaabatay horta maslaxadii waa la aqoonsaday alternative justice la dhaha maxkamada loo furay meel walba maxkamada loo furay markay waxa way hadda waxaan qabnaa maxkamadan hadda Mandheera ku yaasho hadda waxay bilaabatay baasha si fiican uma karin laakiin waxa way maxkamad Mandheera ku yaasho dhul hadii la isku qabsado keeskaas odayaasha ay u soo gudbini ma aha AJS loo soo gudbina alternative justice ki heer dhaqameedkii maslaxadii loo soo gudbina maxay nin judge oo hadda laga keenay Kiambu miskirinyaga ka yimaad dhulkan hadda meesha shafshafay isku haysana ani Maxamed isku haysana waxba kama aqaan laakiin odayaasha dhulka ay degan yihiin jiirana dhulkaas jiiranaas leeyahay waxba ay ka aqaanaan marka waxa loo soo dhaafina marka odayaasha loo soo dhaafina waxa la soo siinaa karani oo maxkamad leedahay ayaa la soo siinaa keeska loo fadhiisana dhulkaas ay tagayn waxay ay soo fiirinayn keeskaas loo fadhiisana karaniga wax kulli u qora go'aankooda meesha ay ku go'aaminayn maxkamadda loo soo wareejina sidii baashi marka saas horta arinta waa bilaabatay laakiin wali si fiican uma hirgelin wax dhawaan bilawta kulli culeyskooda iska qaban ilaa hadda resource-ki odayaasha marka inta ka tagaan oo garbaqul ay tagayn oo arin xalinayn gaarigi wax ku fuulayn ma haystaan xafiiskii resource ma baahna karani oo gooni oo go'an oo iyaga iska leeyna ma qabaan marka keeskana waxa way waa kees markii judge markaas soo dhaafina moogi laakiin hadda waa bilaabatay waxaan ku rajo qabnaa in muddo dhaxdeeda insha Allah taala arintan labadan arimood waxay weyn oo gabar la kufsaday mise gamaada qof la dili
waxyaalo weyn saas hadday ahayn wixii kale oo hoose oo civil ah kulli in la soo celiyo oo meesha la keenay meesha lagu xabay wixii alternative justice xukumisana waa wax maxkamada xukumisay maxkamada la dhigaa saas ay ku dhamaanay maxaana la gudboon mudane kolkay dadka khilaafaadka ka dhaxeeyo ay diidaan xal marinta dhaqameed iyo xululka kale ee xalinta waa dhici jirtay waan aragnay maslaha marmar waa la diidi karaa mandheera wax ku dhaceen laba beel dhexdooda ka dhaceen waa la diidi marka labadan waa ismari wayse hadda ismari wayse heer Soomaali waxaan qabnaa labadan ciidood dad ka ahayn ida kala oo labadan ciidood isla degan arrintan u fadhiisanay hadii la kari waayo subcountigan waa laga baxa odayaal kala laga keenay eelwaqi taagabi banas iyo raamo iyo arabiya iyo finno odayaal kala xaq laga keenay oo meeshan joogin oo ku tuumi kareen yaani odaygan hadda yaani dhinaca soo jiiftay wax la dhigi karin dadka marka level kan waxa way level community dhaxdeed sheebka dhaxdiisu laakiin dad kala meel kala ka keenay appeal kala marka meel hadii intaan kulli lagu go'aamay meel kala tagi karta ma jir sidee loo ilaalin karaa xaqa iyo cadaaladda shakhsi walba kolka loo adeegsanayo xululka kale ee xalinta khilaafaadka sidii loo ilaalina waxa way ninkii Allaah dulun loo geystay inaas xaqiisa loo way hadii ninkan xaqiisa lin wax dhaqaaqi kar malaha maxaa yeelay ninkii aggrieved ninkii dib loo geystay waa taga waa argudana hadda saqilin hadii gacan laga jibi gacantii waxay goynay haday shan geel tahay inaas helo way kii eligta laga riday inaas shantiis geel inaas helo way hadda seli waayo waa taga waxa dib kala sirida marka anaga waxaan ku tala jirnaa nin walba inaas xafiiska yaani meeshiisa inaas xaqiisa asal dhageyste waraysigu waan u soo laaban doonaa balse haddii aan dhageysano afkaarta dadweynaha iyo qodobka xalqadeena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجاعيق وعمر وحيابها وجبضن وعلاد كان وحكمدا دقالة مثل رسوس وحيدان وحكمدا داقة ما دام بلشدة أي تهدد وحول دقتها وحالجا ملاقار إن لوس كود على وحي أو بيه ماشي داقي وحي لجا بين لوس كود على مدك على كين كرت وحيد هاي سياسة أسكجرتو مرك السياسة دي إن معنا وحي لوهشين وهاي مسؤول لوس كوجف مرك واحد كل وحي كين يعني إن خلافات بلشدة كذا مرك وحياة لوهشين كر مرك waxay tahay maadaama dadka dadii muslimiin ay yihiin waxa fiican in oo la wada fariisto dadka dhan culimadii maamooyinkii odayaashii dadkii daayarta kulli in la fariisto oo laga wada hadlo wixii macnaha dhibka keenay in loo fariisto midaas horta lagu xalin karaa marka dadka dhinacayaha dad culimada haday imaadaan macnaha wixii diinta ka qabtay dadka hadii wax la fahansiyo dhibaatada ay leedahay wacyi gelin badan hadii loo hagaajiyo waxa way khilaafka badan waa la yareen karaa waana waxyaalaha badan oo fiican lagu xalin kara ay kamid tahay odayaasha waxa way wiligeedaba Soomaaliyan danahay dhaqankeena waxa way maslaxa waxa la jiro oo wixii dhaca odayaashu ba loogu yeeri jiro ayagu ba xalin jiray haddana waxa way horta dadku way ka saayaan ayaga u fariisana wixii dhacay intaas qof loo fariisana waxa la ogaana dhibkan tuu ka imaaday markaas kadib ayaga go'aan ka gaaray marka hadii oo dhiig la qaadana noqoto hadii fine noqoto hadii oo macnaha meesha lagu dhameeyo hatta laba qof haday isgafaan masa isku dhacaan odayaashu ba u fariisana waa wax wiligeeda jiri marka doorka odayaasha waxa way inay dadku isku keenaan macnaha si cadaalad ay ku dhameeyaan si oo macnaha cadaalad hadii la helo marka xal waa la gaara marka muhiimadooda mashaqadooda weyn waxa way dadka inay keenan ay heshiisiyaan waan hol wiligood ay qaban jireen waxa fiican horta mid ugu horeeyay in la ogaado dhibka intuu ka imaaday dhibka meeshuu ka imaaday horta in la ogaado isbedel loo baahan yahay maxaa yeelay waxa laga yaabaa laba qof isku dagaashay siyaasad waxba isgaarsiiyeen dadka marka hadhow kees kala bedelka dhinaca kale loo raacay la horta waa in la ogaado maxaa asaaska hore masad dhibaatada meel ka bilaabatay maxay tahay marka isfahanka naftirkiisa ayaa muhiim ah marka hadii la isfahmo dhibka meeshuu ka imaaday hadii horta la ogaado waa muhiim laakiin hadii oo waxba iyadoo la hubsanin loo fariisto waxa laga qofan macnaha gardara lahana laga yaabaa in la gardaran tahay marka isbedelka ku fiican dhinaca khilaafaadka la xalinayo waxay tahay in macnaha la ogaado mid kale waxa way in oo dadka wax la baro awareness diinta ay bartaan dadka haday wax bartaan horta waxyaalaha qaar ma wala isku gafilhan marka in oo la fahmo horta diinta islaamka in la fahmo oo la akhristo wixii khilaaf keenay in la ogaado isbedel ahaan waxaan dhila marka in oo wacyi gelin badan dadka macna ay haystaan dada waxa laga yaabaa meel iska jooga ay war haynin hatta qofka laga yaabaa qof haduu dilo uu arkeenba inuu qalad u galay marka hadii laakiin la fahmo dhibaatada ay leedahay mas'uuliyadka uu leeyahay qof bilaadan qof muslim lidalay tusaalaan qofka haduu fahmo marka kuma degdegay marka in oo diinta la barto wacyi gelin badan la suubiyo wixii arinta jirteen si dhab ah hadii loo hadlo waa isbedel weyn oo loo baahan yahay
horta magacay cabdi xasan qalaal ah wixii oo dadka markay isku dagaalayeen dagaalka maxaa keeni kara dagaalku wuxuu keeni karaa nacayba keeni karta nacabtaas waxaa keeni karta dhulka waa la isku dagaali karaa biyihiina waa lagu kala dagaali karaa xoosni labada dhinac qoyska labada dhinac labada qabiil waxay isku dagaali karaan waa dhulka way noqon kartaa wabiga way noqon kartaa waxyaabaha fara badan sidii lagu xallin karaa waa in labada dhinac la fadhiisto odayaal waaweyn la keento odayaal markii la keeno la fadhiiso arrintaas la maslaxeeyo sidii garayaqaan inta badan sababo badan ayaa curiyo colaadaha bulshada dhexdeeda colaadahana sideedu waa wax fiican ma ahan aad iyo aad ay u xun yihiin marka waxyaalaha curiya ama sababa colaadaha waxa kamid ah qabyaalada oo la sii huriyo iyo iyadoo oo lagu xoojinayo danaha gaarka ah bulshada dhexdeeda qabyaalada hadii ay ku badato dadka qabiilo isku dagaalaan colaada aad iyo aad ay u badanaysaa dadkana cadow ay isku noqonayaan hata waxa suurtagal ah in ay dadka qaar ay isdilaan colaadaha darteed teeda kaleeto waxyaalaha kale oo sababi kara colaadaha ama curuni kara colaadaha waxa kamid ah kheyraad la'aan iyo tartanka dhinaca ilaaha dabiiciga ah iyo sida dhul dhaqameedka ama sida dhul deeqsimaadka iyo meelaha ay dhirta ku baxdo ee dadka bulshada u geystaan xoolaha siiba xoolo dhaqatada ay geystaan xoolaha si ay daaqsiin u helaan marka waxa laga yaabaa reer guuraaga inay isku dagaalaan dhul daaqsimeed taas oo sababi karta dhiig inuu daato dad badan ay ku dhintaan teeda kaleeto waxyaalaha kale oo sababi kara colaadaha waxa kamid ah kala fognaanshaha siyaasadeed markii ay bulshada dhanka siyaasadda aysan isku afgaran waayaan ee isdagaalaan ama colaadooda ee noqoto dhankaaneeto iyo siyaasadda la isku fahmi waayo iyo ku dagaalanka talada iyo awoodda yaa dadka u talinayo marka xisbi kasta marka uu rabo inuu u taliyo dadka bulshada taas waxay sababi kartaa colaad aad iyo aad u baahan iyo sida xisbiyada siyaasadeed marka ay ogolaan waayaan in laga guuleystay waxyaalaha kale oo sababo colaadaha aad iyo aad ku weyn waxa kamid ah waxbarasho la'aanta oo keentay indho la'aan iyo fikir iyo in ay dadka noqdaan dad aan wax qabsan karin oo colaada oo ku fikiro marka waxyaalaha kale oo aad iyo aad ku sababi kara colaadaha waxa kamid ah saameynta kooxaha hubeysan oo ka faa'iideysta daciifnimada bulshada kooxaha hubeysan oo kala duwan in ay dadka bulshada ay ku qabsadaan meel jeera ama dadka oo safraya inay u dhigtaan isbaaro ay dilaan ee dhacaan ay u geystaan taasna waxay sababi kartaa colaad iyo aad u weyn marka waxyaalaha kale oo sababi kara colaada bulshada dhexdeeda waxa kamid ah dulmi iyo cadaalad daro bulshada qaar ayaa la dulminayaa qaar ayaa loo diidayaa xaqooda marka taas waxay sababi kartaa cadaalad daro aad iyo aad u weyn taasoo isla ahaantii keeni karta dagaal ama colaad aad iyo aad u weyn ka dhexdhacda nidaamka bulshada dhexdiisa marka waxyaalaha kale oo jiro oo haddana ku xusan nuqulka ayaa waxa kamid ah sida loo xalin karo khilaafaadkan aad iyo aad u baahsan iyadoo la isticmaalaynin ama la tigsanaynin sharci ama dastuur waxaa laga yaabaa dadka badanaa inay aaminsan yihiin sharciga ama dastuurka balse marmar qaar waxaa la samayn karaa in oo colaada la xaliyo iyadoo la isticmaalaynin sharci ama dastuur waxaa kamid ah in la isku furo shirar nabadeed oo lagu dhiso is-aaminaad iyo xal waara in la isticmaalo xeer dhaqameedka oo saldhig u ah isku xalinta khilaafaadka bulshada in hogaamiyaasha dhaqanka iyo diinta iyo dhexdhexaadin ka noqdaan xalinta colaadaha waxaa kaloo kamid ah in la adeegsado ergo ka kooban dhalinyaro haween iyo odayaal si wada jir ah u keenaan wada hadal bulshada dhexdeeda in la sameeyo qorshe nabadeed oo ku salaysan wada tashi iyo wada hadal dhexdhexaad ah in la helo cid bulshada dhexdeeda u taagan ilaalinta nabadda iyo xalinta muranka dhexmara dadka odayaasha door aad iyo aad weyn ayay ka leeyihiin xalinta khilaafaadka odayaashu waxay fududeeyaan dhexdhexaadin iyagoo ka hortaga dhiig daata waxay bulshada dhexdeeda ku abuuraan jawi afgarad iyo dib u heshiisiin bulshada dhexdeeda odayaasha waxa ay si u dhaqmaan garsoore cadaalad ahaan daacadnimo ayagoo dhinacana la jireenin odayaasha sidooda waxay ilaaliyaan xeerka u yaala bulshada xeerarka dhaqanka si muranada loo xakameeyo waxay dhiirigeliyaan wadajirka iyo midnimada bulshada odayaasha heer aad iyo aad weyn ayay ka leeyihiin khilaafaadka xalintooda waxay dhexdhexaadiyaan cid walba oo khilaaf dhex maro
xitaa qabiilooyin kala duwan xitaa waxaa laga yaabaa inay xaliyaan familiyaal isdagaalaan markii familkii camal ay isgafaan inay xaliyaan laga yaabaa marka xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda waxay leedahay door aad iyo aad u weyn waxaa yeelay bulshada ayaa isbedel keenaysaa waxay ku keeni kartaa waxbarasho iyo wacyigelin lagu baraayo dadka faa'iidada nabadda iyo dhibaatooyinka colaadaha in bulshada la baro xalinta khilaafaadka iyadoo aan loo adeegsan gacanka hadal in dhalinyarada la siiyo tababar ku saabsan dhexdhexaadinta iyo hogaaminta nabadda haweenka oo laga qaybgeliyo xalinta khilaafaadka maadaama ay door weyn ku leeyihiin bulshooyinka in la dhiso gooleyaal nabadeed oo si joogto ah u shaqeeya kana kooban bulshada qaybaheeda kala duwan xoojinta wada shaqaynta hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee ka shaqeeya nabadda bad u mahadsantihiin kuwaasna waa qaar ka mid ah shacabka reer Mandheera oo ka qayb qaadanaya barnaamijkeena bal haddii aan sii wadano waraysigeena mudane doorka dhexdhexaadinta ee bulshada ka dhaxeeya colaadda bal wax nooga sheeg bulshada horta colaadda ka dhaxeeya horta anaga dawlad ahaan arintoo zaid aan u diinaa waana celinaa laakiin waa naga badbadataa marmar gacantayna ka baxda anaga horta ma ogolin laba qof hadday isgafto xasan iyo xuseen hadday isgafeen oo xasanna gariyahay xuseenna muruliyahay hadday isgafeen anaga iyadoo xasan iyo xuseen lagu celiyaan rabnaa in muruliya garra la dhaha horta ma rabno in saas loo bandhigo oo gariyo muruli dhaha misdugodiyo gariyo dugodiyo asdagaalda waa qofku waa tagay shakhsi meel dugodi ku fadhiistay misgarra fadhiisteen oo ku tashteen in qofkan la dilay ma jirin ninkan waxa isaga ka imaaday oo isaga maagay as ku taga qofku dila marka anaga dawlad ahaan aad iyo aad waan diinaa arrintaas in qabiil laga dhigay laakiin hadday dhacdo oo iyada dhacdo labada dad waxa way horta in ilaahay ka cabsadaan way yaani qof garraa wax la yeelee marka kulligood inay garuun isla qaataan maaha marka in dhaxdood laga hela nin ilaahay ka cabsana oo markhaati ah oo waxay wax u jiraan u sheeg oo maslaxada ka talina oo ciidan oo kacsana dejina in laga helo way waana laga heli jiray wiligoodna laga waynin marka saas aan u maleeyo insha Allah marka sidee la isku jaan qaadsiin karaa nidaamka dawladda iyo dhaqanka bulshada si loo helo cadaalad iyo maslaxad lagu qanco haddaba waxa way ani dawladdan u shaqeeya dawladda mas'uulka ah laakiin waxyaalaha aan ku shaqeeyo aan yaani shaqadeedu waxa ku dhex jira maslaxadii iyo systemkii oo community dhaxdeeda aan ogolsanahay maxay saas un baa wax ku socon karaan haddaad adii madax weyn oo dawlad aad dhahdaad meeshaas aad ku yimaad buud iyo sarwal aad u soo gashato waxba kaama soconayn marka anaga waxa way waan ixtiraamnaa anagoo ogol yani in ninkan dhibka anaga waxa way waxaan rabnaa un yani dhibkan see isku istaagi karaa dhibkan see lagu istaajinaa dhibkan hadda maslaxada ku jirto in yani arrintan dhulkan saan qofkan laga qaado odayaasha waxay ku taliyeen anaga waxaan fulinaynaa amarkaas amarkii odayaasha waxay ku goosteen aan fulinayna marka yani si walba anaga dawlad ahaan wax waan u wadnaa shabahaan waan u wadnaa intaan waxaan u yeelaynaa yani sifa yani aan maslaxa aan ku keenno oo waddanka yani ku degnaado waa maxay caqabadaha xulka khilaaf xalinta ku dheehan dhaqanka bulshadeena challenges ka imaana waxa way horto dhiigina qaalaas noqday qofaan la dilay markaan hadda 4.5 aan ka dhigayni awal 1 milyan waxaan leen waa yaray 4.5 waxay noqotay waa badatay awal dhiiga dhaqsi muddo badan dhiiga muddaas qaba kas iyo kama kala jir ninka kas loo diray waa in hal san gudaheed dhiigiisa lagu bixiyo ninka kama loo dilayna waa in 3 san dhaxdeeda lagu spread gareeyo lagu bixiyo dhibka weyn hadda jir waxa way dhib oo meel walba yaala oo sixir bararka oo lacag la'aanta waddanka ka jirta awal madda taas waa mid labaadoo jirta waxa dhibka jir waxa way dhibka zayn noqday awal hadda census-ka buugta census hadaad qaadato aad fiiriso sanadaha waxa lagu tilmaami jiray sanad heblow la dili ala dhigi jiray yani dilka kala fogaan jiray hadda ayaamaan waxa noqotay dilkii waxa noqday shay caadi iska ah subaxda qof la dilaa duhurka mid kale la dilaa tii adoo fadhiisanin oo hata xaajada dhamaanin mid kale dal lagu korkeena mid kale lagu korkeena dhiigii isku batay tii la qaaday tii la bixinay tii la horumarinay lama kala aqaan horta taasna waa challenge oo hadda nahaysa madda kale waxa way odayaasha waxa way resource ma qabaan odayaasha meel lagu aqaan ma laha iyaga waa dadaaleen khayr Allah siyo nidaam ahaan hool yani ilaahay saar waajib ilaahay saar way waxan muslimiin ma ogaataa dhulkan gaaladan waxa lagu marka laakiin iyaga shaqadoodba waxay qaateen in dad maslaxa ka talina marka laakiin baki ma qabaan dawlad oo yani misdaba taagan budget oo daba taagan oo gawaaridoodii iyo
jiifkoodii iyo cuntadoodii intaan kale u qaada malaha odaygan balcaanas qaba caruuras qaba saan u raba mashaarkayda caruurtayda aan wax u siiyo isagana waxaas raba haddaas magaaladaas ka bacd raama u dirto in ciddiis wax u reeb waan raba marka hogo resourcekii oo yani meel ma laha odayaashan hadda meel ma laha meel ma haystaan dowladna waxbara kama haystaan shacabkiina systemkii oo jirina waxa weyn oo lacag hadda markii dhiiga qofka la soo hela ayaa percentage yar odayaasha laga siina waa 3 san ka bacdi marka intaas challenge yar horta waa waxas marka laakiin alxamdulillah laakiin dadkayna waxa way niyadooda wanaagsan niyadooda fiican saas un baa wax ku wana laakiin challenge waa jira sidee loo abuuri karaa mudane aaminaad iyo kalsoonida bulshada ee xulka noocaani ah waxa way horta waa alla ka cabsi way horta waxa weyn kulli waa alla ka cabsi way ninkiinaas markaas waxa waa dhacan laakiin wax walba in sideedii iyo qiyaasteed markaas sheegana as ilaahay ka cabsado wixii la yeelo unaas sheegto dulun iyo nab iyo wax kale as ku darin markii yani odayaashana waa doqdaan oday xaq ah moogay in odaygii garra as la safta kii murul la safta taas looma baahna marka insha Allah taala waxa way yani saasun baan wax ku nadaamina sidee loo abuuri karaa mudane aaminaad iyo kalsoonida bulshada ee xulka noocaani ah waa badan tahay baanis iyo lukan baanis sub county khilaaf badan ka dhacay gariyo dugoodi dad badan waa la kala laayay kullina waa loo fadhiistay kullina yani badina dhiigood waa la bixiyay kuwa la bixinin oo liscaafil kala tagana waa iska jirta sharcigaaba qaba marka kuwa hadda la bixinin oo laakiin la isku heshii oo meel qoran nin walba waxiis qortay u yaalana waa jiraan mandheeradan dhaxdeeda 4 dhiig amal oo beelaha dhaxdooda kulli aan bixinay hatta kuwa Ethiopia ka imaaday oo nin ogaadayna meesha lagu dirinta imaaday dhiigiis waa la bixiyay waa badiyeen hadda kulli file hadda soo qaad leh waan ku sheegay habad laakiin wax dhiigay yani hadii balance yani waa waxa dhigi kartaa dhiig inaas kulli la dhameenin oo processka 3 sano ku dhex jiro laakiin hadda kees oo yaala malaha calaamadaha misne maxaa lagu sii ogaani karaa inay colaad soo socoto sideena looga hortagi karaa waxa lagu hortagi karaa oo colaad horta waxa lagu ogaan karaa waa badiyeen khaasatan abaarta naftigeeda waxa waa markay abaar jirto oo barakac jiro abaar jirto yani waxa way absiyaaj maxaa roob ma jiro meesho kale roob ku day wixii xoolaha dhulkan joog kulli meesha isku tagay marka resource markaas saas u yar yahay marka waxa ka iman kartaa khilaaf ka iman kara mid kale waxa way aad fiirina waxa way marmar waxa way dhinaca Ethiopia roob ka daa inta kama daa Soomaaliya roob ka daa inta kama daa xoolii waa guuray marka dadkaadii oo dawlad ka warqabin oo xagga dhaxgalay meel saas isku tagana taas waa cabsi waa jirta waxyaalo badan oo la fiirina kala waa jira laakiin waxa way marka waxaas kulli dhacaan anaga waxa way ka hortaga marka anaga dadka waan la hadalnaa dadkaayna marka hadda abaar jirto intay gudbin anaga ka hortagayn waraaq aan qorna mas'al naftiga gaariyan fula Ethiopia taga mas'uuliyiinta Ethiopia iyo odayaashooda la fadhiisana waxaan leenahay dhulkayna abaar ka dhacday dhibkana jir hoolii waa soo socdaan xoolahaas in laga qaado haday u badan tahay waxa waraaqi xoolii dadkii iyo mas'uulka ka ah odayaashii baal magacood dhibayna moogi adi hordareen inaas lahaado oo reportkaas aan geeyno way hadii taas dhicin waxa way oo meesha wax ku dhacaan birito inaad qabsan kartana ma jiraan mid kale waxa way dadkan waan u sheegnaa aad iyo aad waxaan dhahnaa dadka saay ula dhaqdaan waan u sheegnaa mar walba yani wadan kala tagto wadankaas nidaam lagu nool yahay jirta inay dadka marka la dhaqdaan waan u sheegnaa marka waan ka hortagnaa yani waxyaalihii oo meeshan inaan ku celino oo meeshan loogu dhaamiyo oo banaanka wax ka doorin kulli waan yeelna waxaas kulli waa ka hortag way mid ka hortag kale waxa way yani pending issues waxyaala oo dhamaanin oo sidii loo bilaabay hogo daba dheeraadeen kulli waan ka daba tagnaa safa ay ku dhimaadaan maxay safa ay infection kala ay ku keenin insha Allah ugu dambeyn aad manaad u mahadsan tahay doorka wacyigelinta bulshada ee ka dhanka colaadaha waa jirtaa anaga ma sugno in dib ka dhaca kale ma sugno wadanka hadda amal waqtigan amal wadanka nabad yahay oo dib jirin wax yar galin badan suubina ma hada leeyihiin hay'ado badan ay nagu taageera arintaas hay'adaha isla shaqeynaa sideedaba hay'adaha isla shaqeynaa iyaga nagu taageera hatta dib markaas dhacay iyaga nala jira odayaashan iyo waxaan facilitation kan kulli hay'adaha noo yeela marka waxaas waxa way yani hadda waxa way balcaama youthka
colkii ayala ol ma tagay oday ma tagay dhalinyarada tagay colka waxa tagay dhalinyaradan kulli waxaan u hagaajinaa yani wax bataqaana maskaxdood bedela hadda dawladda waxa way polytechnic badan ay furtay sub county wal polytechnic lagu furay wala qalab badan la geli caruurta waxaan leenahay dhalinyarada waxaan leenahay meesha sala gala kii dhameeyna waxa la siinaa tool kit la siinaa oo isku shaqeysana hadday September tahay qalabkiis kulli waa qaba magaalaas gala hadday sharqaan tahay sharqaan la siinaa marka waxaas yani waxaas kulli waxaan u yeelaynaa inaan ka mashquulino al-shabaab say ku galin ay ku galin yani arrimaha khilaafaadka yani colkii waxaan ay ku galin darbi bas drugs amal ay ku dhaxgalin dhalinyarada yani waa mashquul oo negative mashquul of positive oo ay gacantooda ay wax ku bartaan oo gacantooda muruqmaal shaqo muruqmaal aan gelinaa insha Allah taala shacabka naftigiisa baraarujin badan loo hagaajiya wala dhax socda waxaan qabnaa marmar peace karaba wax la oo dadkii labada dhinac iyo oday culimo iyo balcaan wala isla wareega inta laga taga dawladii garada ay ka shalay isqalaafeen oo maslaxada dhacday maalinta xagga la taga barsa lagu dhiga inta la iimaana yani waxaan kulli waxa way wax oo mataqaana mahaye madda kale waxa way peace dividend project waxa la dhahaa dawladda waxay hagaajisay projectyaal oo dadkan u dhaxay marmar waxa la isku gafaa bi marka warta waxa lagu qodaa meel mataqaana labadan cidoodba ay ka cabi karaan warsaasa meel lagu qoda wariyaha la badina booholka la badina resource naftigiisa oo dadka isku gafi lahaayeen kulli nin walba meeshiisa wax lagu siina dogoodi inay tagaan dhulka gar tagaan maaha inay meeshood boohol ku helaan garan meeshiisa ku helaan hadii abaar jirta moog nin walba meeshiisa wixii la karaa in ilaahay ku deeqo taas lagu tarjuma waxaas kulli waa ka hortag aad u mahadsantahay fariinta ugu dambaysa aad u diraysaa reer Mandera fariinta aan u diraa waxa way reer Mandera walaal kalma qabtiin idinka walaal isu ah idinka jiiraan ah walaal kalma qabtoon walaalkal banaanka imaanana malaha jiiraankaada walaalkaada nin walba jiiraankiisa ilaaliyo nabadda hal qaato habeen iyo maalin nabadda waxay ka bilaabataa gurigaada ay ka bilaabataa shay xun oday hadaa tahay balcaan hadaa tahay dhalinyarada tahay wax wanaag ahayn hadaad aragto hataa sharciga islaamka waxaas qaba inaad gacantaada aad ku celiso gacantaada aad ku kari wayso afkaada aad ku celiso si walba aad yeesho marka nabadda hal qaato wax walba waa dhacayn nabad hal qaataan leey jiiraanka la ilaaliyo wixii jira resource hal isla qiibsado hadii dhib jiro dhibkana waxa way dialogue miskiin isku imaado miskorkiisa la isku weydii in qori la soo qaato oo xanaaqad aad qori aad ku qaado maaha marka insha Allah taala walaalka ma qabtiin walaaliin waa kane mid kana hadda indhaha ku tataagi bari marka dhimatay kana ku duga nin kale ku duga malaha marka waxaan leenahay nabadda hal ilaaliyo insha Allah halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa dhageyste xalqadeena maanta oo diiradda ku saarnay siyaabaha kala duwan ee xalinta khilaafaadka iyo isku dhacyada bulshada waad ku mahadsantahay dhageyste la jaanqaadkaada nagala soco baraha bulshada ee Facebook X ama Twitter sidaad u taqaanidba iyo YouTube ciwaankuna waa danta dalalka dariska xalqada xigta waxaan diiradda ku saari doonaa doorka haweenka iyo dhalinta ee xalka khilaafaadka iyo isku horimaadka bulshada dariska ah ilaa iyo kulanti dambe waxaan kaaga tagayaa dhageyste sidaas iyo nabadgelyo